inaanu ku baaqno adduunka ugu baaqno ummadda Soomaaliyeed oo dhan ugu baaqno inaan doonayno in dalkanaga nabad ka dhacdo. kulan wacan daawada waa mar kale iyo muuqaal kale. muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa maxamed faarax caydiid. maxaad ka taqaanaa taariikhda generaal oo 25 sano ka hor geeriyooday? warbixin guud ayaan ku eegi doonaa tababarkii uu ku soo qaatay Ruushka, Talyaaniga, dagaalkii Black Hawk Down ay Mareykanku la galay, hadalkii caanka noqday ee Ruushka yiraahdeen markii uu Mareykanku raadinayay generaal caydiid. warbixin guud oo aan taariikhdiisa ku taabanayno ayaan muuqaalkani ku eegi doonaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay uu channelkii uu soo gaaro, magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxamed. wixii bixisii la joogis waa ay ku furan tahay, balse waan ka codsan lahaa inaad ugu soo biirto oo aad channelka subscribe saarto. 1 Agoosto sanadii 1996 waxaa geeriyooday Allah u naxariistay generaal maxamed faarax caydiid oo ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii Soomaaliya, door weyn ku lahaa ololihii xukunka loogu tuuray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. waxa uu ku dhintay magaalada Muqdisho. generaal maxamed faarax caydiid waxa uu bishii December ee sanadii 1934 ku dhashay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. generaalku wax ku soo bartay dalka Talyaaniga iyo sidoo kale Ruushka. waxa uu xilligii gumaysiga la soo shaqeeyay booliskii Talyaaniga oo uu ku biiray sanadii 1952. generaal caydiid ayaa markii dambe ku biiray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo uu ka gaaray ilaa darajada sareeyo guuto. kuliyadda militariga ee Frenzy oo ku taal magaalada Moscow ee dalka Ruushka iyo sidoo kale cilmi dheeraad oo dhanka militariga ku soo qaatay. sanadii 1969 waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ka soo horjeeday afgambigii militari ee dalka ka dhacay. generaalka ayaa waxa uu xabsiga loo taxaabay iyadoo uu mas'uul ka ahaa Maxamed Siyaad Barre. arrintaas caydiid waxaa xabsiga laga soo sii daayay sanadii 1975. dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya sanadii 1977 ilaa sanadii 1978 waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ka qayb gashay. generaal maxamed faarax caydiid waxa uu sidoo kale mar soo noqday danjirihii Soomaaliya u fadhiyay dalka Hindiya. generaal maxamed faarax caydiid waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaashii ka qayb qaatay dumintii dowladda dhexe uu hogaaminayay Korneel Maxamed Siyaad Barre, waxaana sanadii 1991 noqday hogaamiyaha jabhadda USC. jabhaddaas ayaa ciidamada dowladda kula dagaalantay magaalada Muqdisho, ugu dambeyntiina halkaas ka saartay. dagaalkii caydiid iyo Cali Mahdi dabayaaqadii bishii January ee sanadii 1991 Cali Mahdi waxaa madaxweyne ku meel gaar ah u doortay dad u badan xubnaha jabhadda United Somalia Congress USC oo ka mid ahayd xoogagii xukunka ka tuuray Maxamed Siyaad Barre. arrintaas ayaa khilaaf ka dhex dhalisay jabhadda gudaheed, waxaana madaxtinimada Cali Mahdi diiday generaal maxamed faarax caydiid oo isu arkayay hogaamiyaha garabka militari ee USC. khilaafka ayaa isu rogay dagaal kumanaan shacab ay ku dhinteen, kumanaan kalena ay ku barakaceen. cilmi faarax wabi oo ka mid ahaa xukuumaddii uu xilligaas dhisay Cali Mahdi waxa uu ka waramay waxyaabihii dhaliyay khilaafka Cali iyo caydiid. dabkan khilaafka waxaa keenay in generaal caydiid uusan ku qanacsanayn qaabka wax loo dhigay. ragii kale ee siyaasiyiinta ahana waxay u arkeen dalka inuusan geli karin xilli uusan madaxweyne jirin oo qasab ay tahay in la sameeyo nin madax ah kadib wadahadal dib loo galo. arrintaas waxaa la isku fahmi waayay. caydiidna ma uusan aqoonsanin dowladda, waxaana bilaabatay in ciidamo la aruursado oo la kala shakiyo ayuu yidhi. caydiid waxa uu arkayay inuu xaq u leeyahay hoggaanka maadaama uu ahaa nin askari ah u soo dagaalamay siduu sheegay cilmi wabi. dagaal xooggan oo bilooyin socda iyo ciidamada kala taabacsan Cali Mahdi iyo caydiid Allah u naxariistay ku dhex maray Muqdisho, waxaana ka dhashay khasaare ballaaran iyo burbur baaxad leh. dagaalkii caydiid iyo Mareykanka sanadii 1992 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa go'aamiyay in Soomaaliya loo diro ciidamo nabad ilaalin ah oo hogaamiyo Mareykanka. dabayaaqadii sanadii 1992 ciidamada badda ee Mareykanka ayaa soo gaaray Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. howlgalkaas oo Mareykanku hogaaminayay waxaa loogu magac daray howlgalkii rajo soo celinta. sanadkii xigay waxaa dowladda Mareykanka ay hogaaminta ciidamada howlgalka ka waday Soomaaliya ku wareejiyay qaramada midoobay. wax badan kama soo wareegin markii khilaaf uu soo kala dhaxgalay generaal caydiid iyo ciidamada shisheeye ee 35,000 ahaa ee dalku tagay inay nabadeeyaan. caydiid wuxuu xilligaas haystay qaar ka mid ah goobihii muhiimka ee Muqdisho. kadib dhowr goobood oo radio Muqdisho ka mid yahay ayay Mareykanku duqeeyeen.
caradii ka dhalatay waxay sababtay in bishii Juun sanadii 1993 taageerayaashii Generaal Maxamed Faarax Caydiid ay dagaal hubaysan kala hortagaan ciidanka qaramada midoobay weerar lagu qaaday ciidamadii Pakistan ee howlgalka qaybta ka ahaa waxaa lagu dilay 24 askari ilaa 60 kalena waa lagu dhaawacay qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Generaal Caydiid ciidanka Mareykanka ayaa gulufka colaadeed hoggaanka uu qabtay 3 Oktoobar sanadii 1993 ciidanka sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ayaa howlgal military ka fuliyay bartamaha Muqdisho xilligaas waxay heleen xog sheegaysa in Generaal Caydiid uu madax sare kulan kula leeyahay Hotel Olympic ee wadada Holwadaag waxaa howlgalkaas ka qayb qaatay 19 diyaaradood 12 gaari 160 askari oo xarunta ugu baxay in howlgalka muddo 90 daqiiqo ay ku soo fuliyaan waxaase ay soo noqdeen 17 saacadood kadib 50 daqiiqo markii howlgalka socday diyaaradii ugu horeysay Black Hawk ayaa la soo riday 20 daqiiqo kadibna diyaaradii labaad ayaa dhulka la soo dhigay ciidanka howlgalka galay ayaa la hareereeyay ciidan dheeraad ah ayaa loo diray si loo badbaadiyo waxa uu ahaa dagaal daba dheeraaday oo habeenkii oo dhan socday ilaa 12 maqribnimo xilliga Muqdisho boqolaal Soomaaliya iyo 18 askari oo Mareykan ayaa ku nafwaayay dagaalkaas qaar ayaa jidadka Muqdisho lagu jiijiiday dhacdadaas oo fajac ku noqotay Mareykanka waxay soo dedejisay in gabi ahaanba isaga baxaan dalka gargaarkii bini'aadanimada gaabis ayaa ku yimi Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota wuxuu yiri in Soomaaliya oo dhibaato ay ku jirto dunidan ka jeesato waxa lagu micnaan karaa soo aragtida la yiraahdo mas'uuliyad ayaa dunida ka saaran in dadka badbaadiso mana beenoobaysa ayuu yiri markii dambe dagaalka Muqdisho waxaa laga sameeyay filim la magac baxay Black Hawk Down Mareykanku waxay ku guuldareysteen inay gacanta ku soo dhigaan Generaal Maxamed Faarax Caydiid bishii Maarso sanadii 1994 waxaa si rasmi ah loo soo afjaray howlgalkii Mareykanku uu ka waday Soomaaliya inta howlgalkaas uu socday dawladda Ruushka ayaa hadal caan baxay tiri waxaana Ruushka ay sheegtay in 90 tactical military ay bartay Generaal Maxamed Faarax Caydiid balse Mareykanku uu adeegsaday hal tactical military taas ayaana ahayd fashilkii ugu weynaa ee Mareykanku gaaray kowdii bishii Agoosto sanadii 1996 ayuu Generaal Maxamed Faarax ku dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaal la xmaray isaga iyo Cusmaan Caato guud ahaanna waa naga inta daawadayaal muuqaalka aynu kaga hadlaynay Generaal Maxamed Faarax Caydiid nabadgelyo